أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين السلام ولا عليه وحرن جنال كان قروح وفرق وهين ما شاء الله تبارك الله. سوري دواد ملك استدرد جوجتان وولاشين بشر أحمد يمر كلام وقال عصب يارك تعصب. الحمد لله إله وما هتسكله noo sakhiro noo soo fududeeyey inaan maasha allah tabaaraka allah mar labaad aynu ku kulano maxaan ku rahdaa aragti cusub. aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa walaalaha channelka ku xiran maasha allah tabaaraka allah oo markastana garab taagan commentiyada iyo noo soo qora. aad iyo aad ugu niga mahadcelinayaa. waxaan kale u mahadcelinayaa walaalaha maxaan ku rahdaa iyaguna nagu cusub nagu soo biiray. waxaan leeyahay gacmo furan iyo qalbi furan iyo kusoo dhawaada maasha allah tabaaraka allah wax ku waalata leh oo maaragtay leyniga hubo biidnillahi baari. maanta maxaa inoo wadaa? maanta waxaa inoo wadaa maasha allah wax qasqas maanta inooma wado. waxaa inoo wadaa video ka duwan videoyadii hore. waxaan jeclaystay inaan la sheergareeyo saliidaha faa'iidada ay leeyihiin benefit oils inaan la sheergareeyo iyo waxyaalaha anigu aan isticmaalo oo maaragtay maasha allah tabaaraka allah aan biyurigo isticmaalo. marka walaalahayga kusoo dhawaada biidnillahi baari. saliidahan kule waxaan rajeynaya inaad wada taqaanaan wadana isticmaashaan, laakiin waxaa laga yaabaa in badan isticmaalina inay jirto oo ka faa'iidaysato. marka waxaan rajeynaya inaad sii gaarsiisaan walaalihiina kaleeto oo maaragtay khayrka aad la jeceshihiin sidaa naftiina ula jeceshihiin. la jeclaado walaalihiin wanaagga. waxaan jeclahay wax kastoo nafteeda la jeclaado in la qaybsado. maasha allah tabaaraka allah. gabdhaha soomaaliyeedna waxaan jeclahay kulligood inay yihiin gabdho maasha allah tabaaraka allah dee maasha allah dhacdhac. marka akhwaati soo dhawaad walaalahayga. marka maasha allah tabaaraka allah saliidahan faa'iidooyin badan ayay jirka iyo jismiga iyo waxay u leeyihiin maqaarka iyo timaha, xagga caafimaad iyo xagga maaragtay biyuriga, xagga nafaqada kulli inta way ka qayb qaataan. saliidahan badan aad ujeedaan meesha yaallaa runtii kulligood anigu waan isticmaalaa waana isticmaalay xaqiiqatan. markii maxaan ku rahdaa hore waxaan ahaan jiray dadka isticmaala kareemada, laakiin in muddo ah hadda wax kareema ma isticmaalo ma marsado. waxaan isticmaalaa saliidaha bes. saliidaha bes ayaan isticmaalaa. faa'iido badanna waan ka arkay maasha allah. isbedel weyn iyo maaragtay jirkaaga oo maaragtay maxaan ku rahdaa kareemadu inta badan maxaan ku rahdaa waxaa laisku soo qasqasay u badan yihiin. maadaama laisku soo qasqasayna jirka waxbay gaarsiinayaan qasab. haddaad iska daysid kareemka isticmaali jirta qasab ma ahan ku iri intaad isagii maaragtay jirkaaga uu kasoo noqonayo mugdi iyo waxunbaad isku arkaysa saliidaha. laakiin haddaa marsatid iyo haddaa iska daysid waa seem. jirkaagii waxba maaragtay maxaan ku rahdaa uma burseelayo oo maxaan ku rahdaa ma raboonayo jirka waxa kiimikada markii la baro wixii buu rabaa haddii laga daayo. marka walaalahay saliidaha marka haddaan guda galno oon kasoo bilowno dhankan, tan waa castor oil. waxaan rajeynayaa inaad si fiican u aragtaan. si fiican u aragtaan baan rajeynayaa. waa castor oil. waxay u fiican tahay timaha for skin and hair. waa natural bay tahay. skinkaagana waxay siinaysaa maaragtay smooth bay siinaysaa. maxaan ku rahdaa waa saliid aad runtii u fiican. timahana way bixisaa aad bay ugu fiican tahay. maxaan ku rahdaa maqaarkana way u fiican tahay. waxay kaloo bixisaa u fiican tahay maxaan ku rahdaa baalasha indhaha xataa way bixisaa. eyelasheska way bixisaa. waxay bixisaa sunniyaha eybrowga. maxaan ku rahdaa maasha allah. marka saliiddan waa saliid aad u faa'iido badan. isla ogaada haddaad hore u isticmaali jirin hadda isticmaal biidnillahi baari. okay, tanaan ku xigsaneynaa saliiddan rosahib ayaa la dhahaa. maasha allah tabaaraka allah. saliidda ubax laga sameeyo weyaan. aad ayayna maaragtay u faa'iido badan tahay. maxaan ku rahdaa oo jirka iyadoo waana organic. saliidahan hadda meesha ku hayo dhan waa organic maasha allah. organic wuxuu kaga fiican yahay wixii wax ma ogtahay natural oo wax badan aan kusoo qasqasnayn. runtii saliiddan haddaad jeclaatid adaaba is jeclaanaya. habeenkii iyo subaxii ayaad isticmaalaysaa.
wejigaaga markaa dhaqdid ayaad isticmaalaysaa maasha allah. maxaan ku rahdaa aad ayayna wejiga ugu faa'iido badan tahay. haddana insha allah biidnillahi baari waxaan soo wadaa iyadoo aan kasoo sameyn doono kareem oon wax kale ku dari doono insha allah, oodna ila arki doontaan, ka hor dhici mayo. runtii aad ayay u faa'iido badan tahay maasha allah. wejigaaga waxaa ka dareemaysaa faa'iido badan oo quruxdii skinkii iyo maaragtay dhammaan maasha allah tabaarakallah. sidaan bay u taallaa. tii horena imaan tusin cafwan taa dhaladeedu faa'iido badan bay runtii leedahay. marka walaalahay waxaan dhihi lahaa saliidaha marsada, kareemadana ka guura, saliidaha usoo guura biidnillahi baari insha allah. tanaan ku xejinaynaa waa argan oil. ayadana argan oil waa saliid aad iyaduna maaragtay maasha allah tabaarakallah faa'iido ula timaha oo maxaan ku rahdaa bixisa la wada ogyahay. waana taas waa bio waa ujeedaa organic maasha allah tabaarakallah. maxaan ku rahdaa aad ayaynu faa'iido leedahay. calaamadana biyadu waa lagu gartaa. maxaan ku rahdaa dartaaka weysitana lagu gartaa waxyaalaha organiga ah waa taas. marka aad ay u faa'iido badan tahay, timahana way bixisaa maasha allah tabaarakallah. haddaad uga dhigtid maxaan ku rahdaa xagga nafaqa ahaan iyo haddaad caadi u marsatidba insha allah, iyagoo laysku darayna saliidaha wansawda oo madaxa oo marsi ah, ayagoo nafaqa ah oo lagu nafaqaynayo maaragtay tintii lagu kobcinayna waa soo geliyey janalka, gadaal u raac. haddana waxaan kasoo wadaa insha allah iyagoo maaragtay maxaan ku rahdaa marsi caadiya oon laga dhaqayn oo loo deynayo tinta. marka maasha allah iyadana saasaa aad u ogaanaysaan atleast tinta bixisa. waxaan ku xijinaynaa almond oil. annaga afkayga bandal oil baa lagu dhahaa, waa organic waad ujeedaa waa bio 100%. waa saliid runtii wejiga iyo maxaan ku rahdaa iyo timaha labadaba loo isticmaalo. maxaan ku rahdaa maasha allah tabaarakallah wejigana lightingkaaga dhigaysa, buubuuxkaaga dhigaysa. qaasatan saliidan almond oilka aniga aad baan u jeclahay, waayo markii maxaan ku rahdaa aan iska daayay wixii aan marsan jiray iyo kareemadii aan marsan jiray, waxaan ku bedeshay igu horeysay oo wejigayga maaragtay markii ugu horeysay aan ku bilaabay saliidan iyo wax kale oo runtii skinkaygana ii soo celisay. aadna maaragtay aan ugu faa'iiday. saliidahana waaba saliidan ku bartay, saliidani inay saliiduhu faa'iido leeyihiin saliidan ayaan ku ogaaday maasha allah tabaarakallah. waana saliid runtii faa'iido badan. marka gabadha waxaan dhihi lahaa laysla ogaado almond oil hadday sweet tahay iyo hadday kala tahaybo waa isku mid. maasha allah tabaarakallah. marka madaxii wejigan ayadoo isticmaali kartaa sida oo kaleeto. saliidan iyadana haddaan ku xijino waa saliidan waxaan la dhahaa yasmin oil oo waa hair oil. iyadana maasha allah tabaarakallah tinta aad bay ugu fiican tahay, madaxay u fiican tahay, maskaxday ku dejinaysaa maasha allah. haddaad u isticmaalaysid inaad tintii ku nafaqaysid markaa nafaqaynaysid marisid iyo haddaa caadi ahaan u isticmaalaysid insha allah. saliidaha marsiga waan soo wadaa biidnillahi baari ila socda. janalkan insha allah waxaan iisoo gelin doonaa wax dabiiciya oo organiga runtii oodna ka faa'iidi doontaan biidnillahi baari, igana soo duceyn doontaan. anaguna waxaan aad u daneynaya in walaalahay iisoo duceeyaan wixii aan ku faa'iiday markaan la qaybsado, iyaguna iga soo duceyn doonaan maasha allah. halkana waxaan ku haysanaa isna iyada naftirkeeda waa isla almond oil weeyaan oo faceka ah. tan hairka iyo faceka labada loo isticmaali karaa. marka maasha allah tabaarakallah iyadana waa isla tii oo maaragtay maxaan ku rahdaa oo waxaa laga sameeyey lowska ubixiisa laga sameeyey, tana lowska oo caadiya laga sameeyey. marka saas u kala disay, midna waa ubixi midna waa lowskii. okay. coconut waa garanaysaan asagana maasha allah waa bio. weliba mid hadda waxaa igu jira aan anugu sameeyey oon guriga ku sameeyey videoga iyo intaan duubay ayuu maxaan ku rahdaa qashinka isiga daray iga raacay. marka aad baa ugu xumaan. mar kale aan soo gelin doonaa insha allah asagoo aan sameynayo coconutka oo guriga lagu samaysto. maasha allah tabaarakallah inaba caadi maahan. maxaan ku rahdaa waana ka jiibarsan ka jaban yahay kan kaleeto. maasha allah de waa waxaana gurigaaga ku samaysatay. marka saliidan intaan usoo noqon, saliidan maasha allah tabaarakallah tinta iyo jirka labada midna anay kama reeba, labadaba waa u isticmaalaa. maxaan ku rahdaa jirkana waan u isticmaalaa, tintana waan u isticmaalaa, caadina waan u marsadaa.
markaan tinta dhaqdo kaleeto markaan nafaqaysanayana waan isticmaalaa cuntada loo isticmaalaa oo cuntooyinka lagu darsadaa saliidan xataa maasha allah tabaaraka allah haddaad rabtid bas habeenkii markaa seexanaysa oo kaleeto qaada yar haddaad xataa maarata kasii gashatid ilkahay u fiican tahay iyo ciridka iyo maasha allah tabaaraka allah caafimaad badan ayay leedahay saliidani wax maaragtay nafaqa faadana ma lahano xayr iyo wejiga maxaan ku radaa kuu saarayso marka maasha allah habeenkii markaas seexanaysa haddaad wax yar qaadada afkeeda kasii cuntid maasha allah ciridka ilkahay kulliga u fiican tahay way maxaan ku radaa way seef garaynaysaa kan waa rose water maasha allah alaabtan markaan soo dhigay meeska soo dhigay rose water isagoona maasha allah kiibiyoriga weeyaan tan waa avocado oil ayadana timahan uu isticmaalaa maxaan ku rahdaa jirkan markaan maxaan ku rahdaa body scrubyada samaysanayana waan ku darsadaa maxaan ku rahdaa maasha allah tabaaraka allah aad bay jirka maxaan ku rahdaa soft kaaga dhigaysaa naacim kaaga dhigaysaa qurux maasha allah tabaaraka allah marka timaha nafaqaysanayana waan u isticmaalaa marka iyadana labadaas baan u isticmaalaa faa'iido badanna way leedahay maasha allah tintii kuu kobcinaysaa waxay kaaga dhigaysaa mid xabad kuu leh oo dhumuc leh maasha allah oo qurux badan ha ku soo haray dhankaasaan soo dhammaynay saliidan iyadana waxaa la dhahaa sleeping oil baa la dhahaa maasha allah saliid iyadana habeenkii marka la seexanayo la marsado maxaan ku rahdaa waxaa ku jira vitamin c vitamin ay leedahay maasha allah tabaaraka allah waa saliid iyaduna aada u faa'iido badan waan isticmaalaa ujeeda hadda inta ay maarata maxaan ku rahdaa ay marayso waxaan rajeynaya magacyadooda inaad si fiican u arki doontaan والله ما قاعدين عرفتنا مجهدين كلت أسين كنا عرفتنا كل سليم أويل بالله هذا جلسان وأركيسان سليدنا أيضا نقوسو هرطي ما شاء الله تبارك الله وجينا جلاس وأورنجي وسليد لقى سميلين ما شاء الله ومحاكر هذا cocktail oo maarta maasha allah tabaaraka allah orange laga sameeyay saliid aad u faa'iido badan anti agena way leedahay daraygana way ka ilaalinaysaa daray tahay maasha allah suuqa markaa u bixiyso kaleeto ayaan marsadaa suuqa markaan aadiyo kaleeto wixii maarta kaaga soo dhacay banaankana way kaa qabanaysaa markaan maaskiyada marsanayana waan ku darsadaa maasha allah tabaaraka allah markaan baxayn dhaadhaada isku siisiis maasha allah dhalaal wixii banaan kaaga imaan lahaa wejiga dhas iyo kaaga dhici lahaana way kaa qabanaysaa marka maasha allah iyadana faa'iidooyinkaasaan ka helo in la wadaagayo saliidan waa saliid baxar saaf ka samaysan maasha allah saliidan waa saliid maasha allah u faa'iido badan faa'iidooyinka aniga aan ka helay waxaa ka mid ah maasha allah cilaanka oo kaleeto waa saliidda cilaankan aan ku marsaday maasha allah sidaas u maarta quruxda u noqday waana daawateen marajinaya videogaas waxay kale oo u fiican tahay marka dadku ay maaragtay exaamada qabaan ama brokitada qabaan ama neefta qabaan oo kaleeto haddii maaragtay maasha allah ilmuhu hadduu kaa caburo ama qofka weyne guriga joogayba uu caburo aabaya ama hooyadii maasha allah dabqaadka loogu talagalay kuwa biyaha lagu isticmaalo ayaad ku shubaysaa dhowr dhibcood maxaan ku rahdaa kadibna waad u shidaysaa shamax ama hadduu barays yahay ama hadduu shamac yahay kadibna biyaha markaad ku dirtid 10 dhibcood camal ama 5 dhibcood ayaad u shidaysaa waxaan dhigaysaa qofka madaxiisa oo ujeedaa waxay furaysaa sankii waxay kaloo faa'iido u leedahay murqahay faa'iido u leedahay wixii murq xanuunayo oo dhan way ku haynaysaa maxaan ku rahdaa ilmahana waxaa loo ogoliyay waxaa 1 sano ka weyn maasha allah waana saliid runta aad u faa'iido badan oo maaragtay murqihii iyo ilmaha aad u marin kartid hadday meel jug kaga dhacdo kaleeto hadday adiga muruq ku hayo hadday odaga hayo maasha allah saliid kale oo lagu daray nooga jirtaa insha allah saliidda kale kusoo dari doona murqaha iyo maaragtay iyadoo la marinayo meelaha kala goysidii meelaha ku xanuunay meelaha jugta kaa gaareen waan soo gelin doonaa biidnillaahi baari marka akhwaati saliidahan runtii faa'iido badan bay leeyihiin oon dee halkan kusoo koobi karinin waqtiba maaragtay awgis marka maasha allah tabaaraka allah aad ayay faa'iido u leeyihiin anigana wax weyn baan ka arkay runtii kareemadiina waa uga maarmay kiimikana waan uga maarmay inaan ismariyo kareen walaa wax kaleeto ayaga bes ayaan isticmaalaa hadday booriga tahay hadday madaxa tahay iyo hadday wejiga tahaybo keligood ayaan isticmaalaa
maasha allah wayna ikaafiyeen runtii markaan kareemada marsan jiray maantana 100% maantan maartay in ka kalsooniyo ka caafimaad badanahay marka waxaan ugula talin lahaa walaalahay ka guura kareemada u guura saliidahan kareemana waad ka samaysan kartaa in maxaan ku rahdaa ayun saad rabtaad u isticmaali kartaa intaasoo dariiqaad u isticmaali kartaa saliidaha laakiin uma isticmaali kartid kareenka ayuu dariiqa uma isticmaali kartid meesha loogu talagalay uun hadduu madax yahay weji ma marin kartid hadduu weji yahayna madaxa ma marin kartid laakiin saliidaha waxay kaga fiican yihiin ayadoo madaxa ah oo faceka haddana marsanaysaa ayadoo maxaan ku rahdaa boorigii ayaad facekii marsanaysaa ayadoo heer ah ayaad haddana facekii ama madaxii ama boorigii kala marsanaysaa marka ayuu dariiqaad u isticmaali kartaa saliidaha saasay faa'iidadooda ay kaga badan tahay maxaan ku rahdaa faa'iidada kareemada marka maasha allah waxaan rajeynayaa inaad maxaan ku rahdaa aad ka faa'iideen meel loo fala qaraabo aad iyo aad baan ii jeclahay dhammaantiin idinkoo isku duuban waxaan nagaga tegayaa I love you guys waan jeclahay walaalahayga ilaahay darsan u jeclaha tihiin ilaahayna jeclaado waxaan rajeynayaa insha allah inaad janalkeena aad ka faa'iidi doontaan janalku waa janalkiinii biidnillah waxaa u baahan tihiin wadna soo weydiin kartaan wixii maxaan ku rahdaa aniga ahaan awoodeyda aan awoodo on walaashin nagu dhaamo insha allah waxaan rajeynaya inaan soo geliyo janalka aadna ka faa'iidi doontaan waadna iga soo codsan kartaan wixii commenti wixii dhaliil ah noo soo sheega biidnillahi baari waxaa inagaga tegayaa intaan fiideo lamida ku kulmayno fii amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu وولاashii Bushra Axmed oo inaga tagaysa fii amaanillah. I love you guys. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.